السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal meel walba aad joogtiin asxaabta inagu xiran oo janalka daawanayo waxaan joognaa dhulkii xafuri waa joognaa waxaa meeshan kasoo doonan dhowr boos oo beec ka ah iyo dad kaleeto oo wax ka rabo marka waxaan rabnaa asxaabta muuqaalka la sii sheer gareeyo xafuru dhul weyn oo waasac waaye waa tii hadda kor meeshan oo boos laba jidle ah iyo boos kaleeto dhinacaas oo laba jidle ah hadda dhinacaas reeraa soo degeen kastoo soo dhismoosa waa soo roonaaysa dadku wax ku leen waxaan leeyahay hadday daawanooyin meesha rajo fiican ay leedahay maasha allah ha lagu soo dhawaada asxaabta soo bax saaxiibayaal meesha u jeedin xanfuro waa lahaa dhulka dhul nadiif waaye dhinaca waxaa ka saaran beeriya ka saaran dhinaca waxaa ka saaran ceelasha biyaha dhinaca waxaa naga jirta margiska asxaabta waxaan joognaa dhulkii xanfuro waa joognaa dad waxaan soo doonnay iyo dhul kaleeto oo beec ka ah ku dhawaad ilaa 5 boos camal oo Birimi Sugunti Terso waaye marka waxaan rabnaa asxaabta wax u sheegaa waxa leeyihiin dadka inta badan waxay weydiiyaan niyo taariikhda ama maalinta aad soo dhigayso ama maalinta aad duwaysid horta shayga sidiisa muuqaalka ama taariikhda waxay ku qoran tahay YouTube muuqaal la soo geliyay mar walba isaa diiwaan gelinay xilliga la soo geliyay inta bilo yaali inta sano yaali inta sanad yahay inuu loo biliyay wuxuu ku sheegaa taariikhda meesha ku qoran tahay laakiin maanta taariikhdu 31 waaye isla 31 iyo soo galaa marka waxaan rabaa asxaabta qiimaha booska la gadaayo dhulka xafuru waxa waa qiimihiisa 2800 ilaa 3000 u dhaxeeya 2800 ilaa 3000 marka waxa waaye dad kaleeto ay kana family ah oo dhul rabaan oo xafuru dhulka soo doonteen aw keenay marka shanta booski wuxuu ku dhamaanaa 2800 ilaa 3000 laakiin 2800 aakhir markii jiido isku wareer waa laakiin 3000 oo beecaan u yahay beecashidiisana marka waxa waaye ka dhin ku dar waaye okay waxay leedahay dhulka inta u jira dhulka wuxuu u jira xafuru laamiga wuxuu u jira ku dhawaad 5 kiiloomitir laamiga oo andhay jayga jidcadaha oo ka imaato wadada margiska kadib markii laamiga waxaas lagu darno waxay tagaysaa in 7 kiiloomitir ay noqonayaan isku dar inta marka laga baxo wada waxa jirta jidcade oo margiska gasho wadadaas markiiska galayso waxay keenaysaa wadadaas 6 kiiloomitir marka lagu sii diro ku dhawaad marka lagu daro laamiga iyo halaha qoorsuul loo socoyane 7 kiiloomitir waaye marka waxaan rabaa asxaabta inay saas u fahantiin dhulkan dhul maasha Allah oo nadiif ah waaye waana dhul ku yaala ceelasha biyaha wuxuuna daris leeyahay margiska hadda taqaaniin dhinaca margiska naga jirta gacanteeda badax ku aadan waana dhul cabirkiisu yahay 15 20 waa cabirkiisu waa 15 20 hadda reeraa soo degay mar dhow dad badan aad soo degooyin marka meeshana korontada iyo biyo waa leedahay waana dhul fiican oo maasha Allah oo bararsi ku fiican Soomaalidu waxay jecel yihiin intee bararsi ah intee wax saarnaa marka waxa hadii bararsi ay tahay waa bararsi hadii deegaan u rabtidna waa deegi kartaa marka waxa waa wax walbo shayga waxa lagu weydiinaa adeegyada asaasiga waxa laga yaabaa shayga marka u baahatid marka hadda meeshan deegaan yahay oo kaleeto suuqi oo kala u baahan tahay suuqa tusaale waxa ay ceelasha biyaha tagay waa ka soo adeeganaysaa baawar biyaha ka shaqeeyo baawrkii soo raacay waa soo bixiyay hadda sidoo kale muqdisho kale markaan joogno ama ceelasha gudaheeda xaafadaha dhaxdooda xaafadaha camiran waxay leeyihiin xaafado laga adeegto oo suuq leh suuqaasna waa suuq iska yar adeegyo yar laga laakiin markii wax weyn loo baahdo kaleeto in magaalada la aado bi'al raaco bi'al ka shaqeeyo dadku waxay ku leeyihiin marka isbitaal ma leeyahay wax ma leeyahay isbitaalka sheegi sidiisa farmasi iyo waxyaalo yar oo kiniini waa leeyahay laakiin marka isbitaal weyn imaatay wax weyn markuu imaado waxa la aadaa magaalada la aadaa marka taas waxa lagu sharxaa waxay tahay deegaanka waa kale yahay deegaan waxa jiro camiran oo deegaan camiran oo dhisan oo wax walba adeegiis asaasi u yaalo dukaankii leh xaafadihii leh marka waxa waa xaafadaha naftirkooda sida hadda Madiino oo kaleeto xaafadaha deganaa isbitaal waa ku yaala suuq waa ku yaala laakiin bakaara marka tagayna mar walba bakaara laga maarmo marka wax weyn u baahatid oo wax fiican u baahatid wax ka weyn marka u baahantaa oo kale adeeg weyn marka u baahantaa oo kale markaas bakaara tagay jaml iyo waxaas soo qaayay laakiin wixii yar oo asaasiga waa laga helaa marka waxaan leeyahay asxaabta intaas waxaan igu sheegaa anigu sharci waxay tahay dad badan oo isoo weydiiya jir su'aaladaas oo mar walba isoo weydiiyo intee marka adeeg ma leedahay isbitaal ma leedahay suuq ma leedahay wax ma leedahay marka shay walba sidiisa waay marka soo bax asxaabta waa maasantihiin muuqaalka la sii sheer garay asxaabta ugu xiran dhulkan waa kana dhulkan weyn waaye waxaa jeclahay marka warka inay ka dhigo oo
sida wax u fahantiin oo idinkan wax u fahantiin oo idinkan wax u qaadatiin oo la socotiin marka dhulkan dhulka xafuro waaye maanta soo booqanay mar kaleeto boosas soo doonanay ilaa 5 boos oo bee iyo dad kaleeto oo dhulka rabaan oo meesha keenay marka waxaa leenahay asxaabta idinka maadsan meel walba aad joogtiin hal share gareeyo saaxiibada hala gaarsiiyo wixii macluumaad ah WhatsApp ku waaye wixii wax ugu baahan tahay oo dheeraad iyo wax kaleetana waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto dhul maasha Allah oo nadiif ah waaye oo dhul u baahan marka waxaan leeyahay asxaabteeda waa maasantihiin waxa jeclahay sheekadana fahantiin oo muuqaalka ila socotiin asxaabta kale tan ila socdaan dhulkan qiimihiisu waxay dhahan 3000 laakiin 3 ilaa 2 waa ku dhamaa taasna anaa go'aan ku gaari because waxa jeclahay qofka 3 hadii la dhaho qofka Soomaalidu waxa waay maanta markii 3 ku dhaho ama 4 markii ku dhaho ay 4 tormiga siiyay beeca ka dhin iyo ku dar waa jiraa sheegi sidiisana noocaas marka waa maasantihiin asxaabta inta iskuru waa naga horeeyo soo daw soco marka waxa waay saaxiibada qaaliga igu xiran muuqaalka la share gareeyo dhulka xanfuro waa joognaa macluumaadka waan siiyay wixii kale oo dheeraadeen WhatsApp ka yaalo ay la soo xiriiraysiin ay la soo hadlaysiin meeshii ay qabaysiin mufaante marka waxaan leenahay asxaabta ugu dambeyntii muuqaalka la share gareeyo saaxiibada kale ala gaarsiyo dhulka xanfuro waaye wuxuu diris leeyahay margiska ninka yaqaano margiska diris leeyahay dhinaca waxa ka jirto xaafadii la yiraahdo Qoorsuul iyo magaceed meeshaan alla sirtiri iyo waxa ka jiraan ceelasha biyaha ka jiraan dhinacan waxa naga jirto afgooy naga jirto dhinacan waxa naga jirto gacanteeda midig jirto hadda meeshaan la yiraahdo Xaawo Cabdi iyo Lafoole marka waxa waa asxaabtu waa maasantihiin ugu dambeyntii muuqaalka la soo share gareeyo saaxiibada kale hala gaarsiyo asxaabta meel walba aad joogtiin muuqaalka la share gareeyo saaxiibada kale hala gaarsiyo waxa waa shukr waa nala joogo waxaan rabnaa muuqaalkana soo gabagabeyn shaqo hay soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda sharafta leh dal dibadda inuu joogo waa nin salaama 104 hadii maalin tahay maalin wanaagsan hadii haweeney tahay haweeney wanaagsan marka dhulkii waxaan joognaa xanfurow oo 3 kun dadka barfaad idinka ilaahay waxaan fiirsi kara maahane ilaahay wadankiina wax u gata meesha aad joogtiin barafka ka tarbiile qaadaan arki caloosha horta idinkaa baas in tuure baas in reebo koodi hadii xal arki anaa baas raad oo liiso gamo marka ilaahay khayr idinkaa baas in tuure dadkan dawladda marka khayr rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasantii saaxiibayaal meel walba joogtiin waa xaleen muuqaalka la sii garaa insha Allah waxa isku gumayna wixii faahfaahinay nabadgelyo saaxiibayaal meel walba aad joogtiin asxaabta ugu xiran oo janalka daawanayo waxaan joognaa dhulkii xanfuro waa joognaa waxaa meeshan ka soo doonan dhowr boos oo beec ka ah iyo dad kale oo wax karaabo marka waxaan rabnaa asxaabta muuqaalka la sii share gareeyo xanfuro dhul weyn oo waasac waaye